بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله أولا وآخرا، وحنوم هذين الله سبحانه وتعالى إنه يسيري محاضرات كان مسلسل كها بلهاها إن الناس سعدان maantane waa maalin ka mid ah maalmihii caadada noo ahayd oo bishiiba hal mar aan kulmi jirnay. insha Allah taala maanta waxaa marti noo ah Sheikh Abdullahi Al-Hamarawi. kelimadana isaga insha Allah taala noo soo jeedin doono. annagu haddaan nahay dadka loo yimid waxaan laga rabaa insha Allah taala inaan dhageysano. Allah nagu anfaco. falyatafaddal mashkuran maajuran ya sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أدومديسا أيان هاي. إلهي سبحانه وتعالى أدومديسا وحنو فري وحنو كريبي. وحيابه نلا فري وحاكمدا الاستغفار إن إلهي سبحانه وتعالى ويديسنو ذنب داف إلهي سبحانه وتعالى إنا ويديسنو. لما أنتين ولا ليال وان ذنبابنا قفوا لبنا ذنبي وكدعيا. إلهي سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم وحيري كل ابن آدم خضاء. بني آدم لما أنتي سوى مدقف بدناء، وخير الخضائين التوابون. kuwaasi gafana waxa uu qeyr badan kuwii markaasi toobad keeno ayaa uu qeyr badan. gafku waa wax dhacayo inaan qaldanno, waxyaabahaas oo dhan way naga dhacayaan, laakiin waxa markaasi qeyrka ku jira in markaasi la laabto ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo toobad keeno oo istighfaar kale la yimaado. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. haddaadnan dambaabi lahayn ilaahay wuuba maaragtay idin tagsiin lahaa oo waxaa idinku bedeli lahaa qowm kale oo markaasi dambaabo kadibna dambigoodii ay galeen ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisto inuu u dambi dhaafo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi xadiisul qudsi ya bna aadam innaka maa dacawtanii warajawtanii qafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaali. ibna aadamow, intii aad i weydiisanayso dambi dhaaf oo aad rajaynayso naxariisteeda, qafartu lak, waa kuu dambi dhaafaya calaa maa kaana minka walaa ubaali. wax kastoo kaa dhacay waa kugu dambi dhaafaya, man u aabayeelaya dambi dhaafkaasi. ya bna aadam low balaqat dunuubuka canaana asamaa. ibni aadam oo haddii dunuubtaadu ay gaaraan daruuraha haddii ay gaaraan, qafartu lak calaa maa kaana minka walaa ubaali. waa kuu dhaafaya wixii kaa dhacay, mana u aabayeelaya ayuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala. ya bna aadam innaka low ataytanii biquraabi alardi khadaaya uma laqiitanii laa tushriku bii shay-an la ataytuka biquraabiha maqfira. ibna aadamow, haddii aad ii timaadid dhulka muggiisa oo dembi ah, haddaa iila timaadid adigoo shirki aan samaynin, kadibna aa markaasi aa ila kulantid, waa kuu dhaafaya ayuu leeyahay biquraabiha maqfira. dhulka muggiisa oo dembi dhaaf ah ayaan anigana kuula imaanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu dembi dhaafaya. marka walaalayaal, aan ku dadaalno istighfaarta inaan la imaano iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan mar walba aan dembi dhaaf weydiisano. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llah. kuwa markaasi xumaanta haddii ay sameeyaan iyo faaxisho iyo xumaan ay ka dhacdo ama naftooda ay dulmiyaan, dakaru llaha, ilaahay ay xasuustaan, fastaghfaruu lidunuubihim. dunuubtii ay galeen waxay dembi dhaaf weydiisanayaan allah subxaanahu wa tacaala. waman yakfiru dunuuba ila allah. yaa dhaafo dunuubta allah mooyaane, cid kaloo dunuubta dhaafto ma jirto. walam yusiruu calaa maa facaluu. haddana aysan ku sii joogteenin waxyaabihii ay sameeyeen, aysan maaragtay sii daa'imin. wahum yaclamuuna ulaa'ika jazaauhum maghfiratun min rabbihim. kuwaasi markaasi abaalmarkoodu wuxuu ahaanayaa maqfiro iyo dambi dhaaf ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday. وجنات iyo jannooyin tajri min tahtiha al-anhar
ay qulqulayso hoostooda wabiyaal ay qulqulayaan khaalidiina fiiha markaasi ayagoo ah kuwa ku waaray wa ni'ma ajrul caamiliin markaasi waxay heleen waxyaabaha markaasi qaf shaqeeyo lagu abaalmariyo wixii ugu wanaagsanaa ayay heleen markaasi marka walaalayaal istighfaarta mar walba inaan ku dadaalno oo aan la imaano haddii markaasi dumarka haddii ay mashquulsan yihiin xataa ama jikada ay ku jiraan ayagoo jikada ku jiro ay markaasi samayn karaan istighfaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dambi dhaaf weydiistaan haddii aad wadada socoto lugaha laga socdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala istighfaarta weydiiso haddii aad markaasi howl hayso hawsha inta badan gacmaha ayaa laga qabtaa afka ka istighfaarso ilaahay dambi dhaaf weydiiso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu markaasi kuu dambi dhaafo nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo u khudbaynayo dumar ay wuxuu yiri yaa macshar an-nisaa tasaddaqna dumarow wax sadaqaysta wa akthirna al-istighfar istighfarta iyo dambi dhaafkana badiya inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar waxaan idin arkay ayuu yiri inaad tihiin dadka ugu badan naarta dadka ugu badan inaad tihiin ayaan idin arkay ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay yiraahdeen marka maxaa maaragtay arinkaasi aan noqonay inaan ugu badano naarta nabigu wuxuu yiri tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir waxaad ku gaalowdaan markaasi zawjka ayaad ku gaalowdaan oo maaragtay nimcadii uu idin galay iyo wanaag uu soo sameeyay hal mar hadii uu qalad ka dhaco waxaad dhahdaan waligeyn wax wanaaga ma aan sameyn sidoo kale waxaad badisaan ayuu tukthirna al-la'na xanta qiibada iyo namiimada isku dirka iyo waxyaabahaas oo dhan ayaad badisaan ayuu leeyahay iyo maaragtay qiila waqaalada marka waxyaabahaasi inaad iska ilaalisaan oo qiibada iyo xanta iyo waxyaabahaas aad iska ilaalisaan oo aad ku dadaashaan inaad badisaan istighfaarta aad la imaataan mar walba iyo sadaqada sidoo kale al-imaam Hasan al-Basri ayaa markaas waxa u yimid nin baa u yimid oo ka cabanayo abaar markaas wuxuu yiri istighfaar la imaaw mid kale u yimid oo ka cabanayo faqri markaas uu yiri istighfaarta la imaaw mid kale baa u yimid oo ka cabanayo awlaad la'aan markaas uu yiri istighfaarta la imaaw mid kale u yimid oo ka cabanayo in markaasi beertiisa ay qalashay wuxuu yiri istighfaarta la imaaw Hasan al-Basri waxa leeyahay dad kala duwan oo baahiyo kala duwan wata ayaa ku yimaaday dhamaantoodna waxaad u ishaartay istighfaarta wuxuu yiri anigu ma dhihin ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa arinkaasi sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara asagoo ka sheegayo nabi nuux wuxuu yiri faqultu astaghfiru rabbakum waxaan idin yiri dambi dhaaf weydiista rabbigiina innahu kana ghaffaran wuxuu ahaaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala mid dambi dhaafa ah oo dambiga markaasi u dhaafo adoomadiisa yursil as-samaa alaykum midrara wuxuu markaasi samada idin kugu soo dirayaa roob ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala samada idin kaaga keenayaa wayumdidkum bi amwalin wa banina wuxuu idin ku taageerayaa oo idin siinayaa amwaal iyo hanti iyo wa banina wiilal ayaa idin siinayaa iyo caruur wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara sidoo kale wuxuu idin yeelayaa beero iyo wabiyaal ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin sameeynaya marka Hasan al-Basri aayadaas ayuu ka qaatay dadkii kala duwanaa ee u yimaaday ee mid caruur uu dalbanayay mid baahi uu faqri uu ka cabanayay mid markaasi abaar ka cabanayay iyo dhamaantood wuxuu u ishaaray istighfaarta ayuu u ishaaray asagoo markaasi aayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaqmay marka istighfaartu waxyaabo badan ay walaalayaal daawo u tahay aan ku dadaalno istighfaarta inaan mar walba aan la imaano nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلهي سبحانه وتعالى وحوسه دقيا سمد الدنيا مركي أوهري ثلث كدنباء هذين كمركي سدح الواقع بيو ثلث كدنباء إلهي سبحانه وتعالى أسه دقيا سمد الدنيا مركز وحوليه فيقول من يدعوني فأستجيب له يا إبريا وأن دعالي سأجيبها ومن يسألني فأعطيه يا وحي ويدي سنيو أو أنصيا ومن يستغفرني فأغفر له يا إقدم بلاف ضلبايو أو أن أدم بلاف ضلبا هدي أد حلقاس انت سوك عدد إلهي سبحانه وتعالى أد ويدي ستدم بلاف يا وحيبها أد جعشها وحالي يابا إلهي سبحانه وتعالى إنه دعاء هذا أجيبه
marka walaalayaal istighfaarta aan ku dadaalno istighfaarta hadii aan ka hadlayno aad ay markaasi u dheeraanaysaa oo hal majlis iyo laba majlis intaba lagu soo koobi karo fadaaisha ay leedahay waxa kamid ah walaalayaal in markaasi qofka istighfaarta la yimaado ay kamid tahay istighfaarta waxyaabaha naxariista waajibiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku naxariisto ayaa laga helaa lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ma dambi dhaaf weydiisataan arinkaas waxay sababaysaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin naxariisto sidoo kale istighfaartu waxay markaasi ka fogeynaysaa cadaabka oo qofka istighfaarta la imaado ilaahay subhanahu wa ta'ala ma cadaabayo wama kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ilaahay ma ahani mid cadaabayo ayagoo markaasi istighfaar la imaanay ilaahay ma cadaabayo marka walaalayaal istighfaartu fadligeeda aad ay u farabadan yahay fadaaisha istighfaarta aad ay u farabadan tahay aan ku dadaalno mar walba inaan markaasi istighfaarta aan ka faa'iideysano waxa laga yaabaa dadka qaar markaasi istighfaarta inay si qaldan ugu dhawaaqaan qaarkood waxay yiraahdaan astaghfirullah sax ma ahan sida saxda ah waa in la yiraahdo astaghfirullah 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 Soomaalida ay yiraahdaan wax saxan ma ahan sida saxda ah waa astaghfirullah waya xageen marka istighfaarta iyo tasbiixda ee laga la imaanaya ma xibnaha ayaa laga sameeynaya oo gacmaha ma laga tasbiixsanaya oo istighfaarta laga la imaanaya mise tusbax ayaa lagu istighfaarta lagu la imaanaya horta qofka waxa wanaagsan in markaasi uu sayi'aadkiisa tirsado oo san tirsanin xasanaadkiisa waxyaabo waxa jira markaasi ku soo arooray in markaasi tiro gooniya laga sameeyo adkaarta qaarkeed adkaartaas waxa wanaagsan qofka inuu ku sameeyo faraha uu ka sameeyo maxaa yeelay faruhu way ku marqaati kacayaan nabiga ayayna ka sugnaadeen sallallahu alayhi wasallam laakiin tusbaxa nabiga kama uu sugnaanin sallallahu alayhi wasallam marka waxa wanaagsan maadaama faraha ay maalinka yawm qiyaamah ku marqaati kacayaan in faraha laga sameeyo ayaa wanaagsan وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء مالك يوم القيامة قالوا waxaa ku marqaati furaayo maqaarkooda ayaa ku marqaati furaayo markaas waxay leeyihiin maxaan ugu marqaati furteen waxay leeyihiin maqaarku wuxuu leeyahay waxa naga hadashiyay ilaahaygi ka hadashiyay wax walba marka faraha maalinka yawm qiyaamah way hadlayaan wayna ku marqaati furayaan inaad markaas ku istighfaarsan jirtay oo ku tasbiixsan jirtay marka waxa wanaagsan in markaasi gacmaha aan kala imaano istighfaarta iyo tasbiixda sidoo kale tusbuxu waa shicaar ama calaamad wuxuu yahay dadka ahlul bid'a ah ayuu calaamad u yahay marka inaan la imaano gacantana aan kala imaano ayaa wanaagsan sidoo kale walaalayaal maalmahani waxaan ku jirnaa bisha la yiraahdo Rabiicul Awwal inta badan waxa la qabtaa maaragtay xaflad la yiraahdo mawlidkii nabiga ama dhalashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam 12 Rabiicul Awwal arinkaasi ma ahan arin ka sugnaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiina kama aysan sugnaanin taabiciintii iyo quruntii mufaddalada ahaa oo nabiga yiri khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunhum qurunta waxa ugu fadli badan qarnigayga kadibna waxa ku xigo kuwa igu xigo kadibna kuwa ku sii xigo quruntaas oo yiri dhamaantood ma aysan sameeynin maaragtay ihtifaalkaasi sidoo kale a'imadii markaasi madaahibta afarta ah ee Shaafici iyo Ahmad bin Hanbal iyo Abu Hanifa iyo Imam Malik dhamaantood ayagana ma aysan sameeynin arinkaasi marka waa arin bid'a ah bid'adani waliba waxa isku waafaqsan dadka markaasi sameeyo inay bid'a tahay way ayaga laftirkooda way qirsan yihiin laakiin waxay leeyihiin waa bid'a xasana bid'a wanaagsan wax la dhaama jiraan nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wax kasto la soo dariyay waa bid'a walbana waa baadi ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam marka walaalayaal waxa wanaagsan dadka qaarkood waxay yiraahdaan idinka waxaad qabataan xaflad la yiraahdo usbuucu sheekh Maxamed bin Abdul Wahhab usbuuca markaasi loogu dabaaldegayo sheekh Maxamed bin Abdul Wahhab hadii ay jirto xaflad markaasi la qabto oo loogu dabaaldego sanad walba sheekh Maxamed bin Abdul Wahhab
ayada laftirkeedu waxay noqonaysaa bidco laakiin ma jirto arinkaasi oo waxay sheegayaan wax la qabtay sanadka markuu ah 1400 oo nisful qarni ka hor oo lagu faafinay kutubta sheekha laguna cadeynayay sheekha maaragtay waxa uu yahay iyo dadka markaasi shubahaadka iyo waxyaabaha qaldan ee ka aaminsan yihiin looga saarayay wax soo noqonaya sanad walbana ma ahan marka waa wax la qabtay ka hor nisful qarni sanadka markuu ahaa 1400 marka walaalayaal mar walba sunnada iyo maaragtay inaan ku dayano nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ku dadaalno waxyaabaha bidacda ahna aan iska dayno istighfaartana walaalayaal mawduucina maanta aha aan ku dadaalno mar walba istighfaarta inaan la imaano hadii aan wada mareyno iyo hadii aan gaari saaranahay iyo hadii aan hool heeno iyo hadii aan guriga ku jirno intaba istighfaarta walaalayaal aan la imaano maxaa yeelay inaad markaasi intii aad gaariga saarantahay iska aamusnaatid oo waxba aad qabanin waxa kaaga wanaagsan inaad markaasi istighfaar la imaatid oo waqtigaasi aad ka faa'iideysatid marka kalimadeena walaalayaal intaas ay noogu dhantahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam وبالله التوفيق